amarkii ugu dambeeyay oo lagu soo qaban lahaa Sani Cabdulla Gaab iyo saraakiil kale oo ciidan ayay dawladda federaalka Soomaaliya ay bixisay ciidamadii ugu badnaa waxaa loo daabulay duleedka Gubadley oo ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dhaqdhaqaaqii xoogganaa iyo sidoo kale diyaar garow xooggan oo ay ciidamadu ay ku galayaan Gubadley iyo sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen taliye Sani Cabdulla Gaab ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo laba arin hor dhigay taliye Sani Cabdulle haddaba maxay tahay labadaas arin iyana sidoo kale xog faahfaahsan iyo macluumaad arintaas la xiriira ayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa ee marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 1 bisha shanaad ee May ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxa ay u daabushay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan halka lagu magacaabo Gubadley oo si weyn markaasi ay ugu sugan ciidamo ka tirsan kuwa taabacsan Sani Cabdulla Gaab Sani Cabdulle ayaa waxa uu ka warhelay qorshaha duulaanka iyo weerarka kaga soo wajahan dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya durbaba waxa uu bilaabay diyaar garow xooggan iyo tallaabo kasta oo kaga soo horjeesanayo dhaqdhaqaaqa ay markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in ay ku gasho gudaha caasimadda aan iraahdo waa in ay u gasho deegaanka Gubadley oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa la amray saraakiisha ciidanka militariga in ay gacanta ay ku soo dhigaan Sani Cabdulla Gaab iyo saraakiil kale oo ciidan kuwaas oo si weyn markaasi u diidan aragtida dawladda federaalka ee Soomaaliya durbaba waxa markaasi la dareemayaa in diyaar garow xooggan abaabul iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq uu xilligan uu soconayo iska soo horjeedo isla markaana xaaladdu waxay u muuqataa in aan la isfuri doonin oo gacmaha la iskula tagi doono waxay u muuqataa in Sani Cabdulle markaasi la weerarayo halka markaasi isagana uu doonayo inuu isdifaaco una diyaar garoobo sidii uu markaasi ula dagaalami lahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya hal arin ama hal amar ayuu siiyay saraakiisha loo soo adeegsaday oo isaga markaasi doonaya inay gacanta uga soo dhigaan waxaana uu sidoo kale uu shaaciyay haddii ay isku dayaan in ay soo galaan halka uu ka taliyo in uu dhammaantood markaasi la dagaalami doono isla markaana uu si toos ah uu u toogan doono xogta aynu helayno waxay sidoo kale intaas ay ku daraysaa in laba qodob uu hor dhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sani Cabdulla Gaab midda koobaad waxay tahay in uu gabi ahaanba markaasi uu soo wareejiyo hubka uu gacanta ku hayo isla markaana si toos ah ugu wareejiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo midda labaad oo ah in uu xilka isaga tago oo gabi ahaanba markaasi booska baneeyo Sani Cabdulle ayaa waxa uu shaaciyay haddii markaasi arintan labadaasi mid kala dooro la dhahay in uu markaasi dooranayo in uu xilka isaga tago isla markaana gaadiidka iyo hubka ciidan ee uu markaasi u haysto uu sidiisa markaasi u sii haysan doono taas ayaana sidoo kale waxa ay niyad jab ay markaasi ay ku tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga si weyn markaasi u doonayay in awoodan ay markaasi noqoto mid si weyn la isugu geeyo in lagaga hortago dhaqdhaqaaqa Sani Cabdulle iyo sidoo kale arinta uu damacsan yahay Sani Cabdulla Gaab waxa uu shaaciyay in uusan marnaba yeelaynin in uu wareejiyo hubkan uu hayo laakiin ay noqon doonaan kuwii uu kula dagaalami lahaa cid kasta markaasi isku daydo in ay isaga ay markaasi soo weerarto dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalin hore waxay bixisay amarka la xiriira in laba degmo oo ku yaalo Muqdisho in hubka dhigis lagu sameeyo ciidamada ku sugan iyo cid kasta markaasi halkaasi joogto isla markaana hubkan laga soo ururiyo degmada koowaad oo sida weyn loo calaamiyay isla markaana ay arintu ugu adag ay ka taagan tahay waa Gubadley oo uu ku sugan yahay taliyaha guutada 3 Abriil 12 Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sani Cabdulla Gaab iyo saraakiil kale oo ciidan oo iyagana markaasi halkaas ku sugan tallaabadaasi koowaad ayaana waxa lagu tilmaamay laguna sheegay in ay tahay mid kaliya oo xilliga markaasi muujinayso isla markaana ay u muuqanayso in hubka dhigistan lagu sameeyo kadibna isaga xabsiga la dhigo laakiin Sani arintan waa uu ka warhelay waxa uu sidoo kale uu ogaaday in uu weerar weyn uu ku soo wajahan yahay dhaqdhaqaaq culus in halkaas ay kaga soo wajahan yihiin isla markaana diyaar garow xooggan uu jiro isagoo taasi ka duulayo
ayuuna sidoo kaleeto durbaba waxa uu markaasi uu sameeyey in uu ciidankiisa heegan buuxa uu geliyo isla markaana uu kaga hortago waddo kasta iyo sidoo kale tallaabo kasta oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay soo qaadayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii Sani Cabdulle uu ka diiday inuu hubka wareejiyo waxa uu amray in la weeraro gubadle loogu tago hubka dhigas lagu sameeyo la soo xiro laakiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu Sani Cabdulle gaab uu weeraro laba mid ayay noqon doontaa midda koowaad waxay noqon doontaa inuu ka adkaado hubka uu hayo uu ka soo qaado isla markaana xabsiga uu dhigo balse haddii uu ka adkaan waayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi waxay u noqon doontaa midii uu xukunku uu kaga degi lahaa isla markaana laga guuleysan lahaa fashil iyo natiijo laan ayayna sidoo kale ay ku noqon lahayd ama bay ku noqonaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud saraakiishii amniga qaranka oo iyaga markaas ka qayb galay kulankii maalinka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo lagu saxiixay in degmooyinka Gubadley iyo Daynile hubka yaalo la soo daabulo isla markaana la geeyo magaalada Muqdisho cid kasta oo hubkaas haysatana laga soo qaado ayaa iyadana waxay tahay mid kaliya oo haatan la dareemayo mid saameynta ku yeelanayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud midda koobaad Daynile waxaa sidoo kale in ku sugan xildhibaan Jacfar oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isla markaana hub iyo gaadiid dagaal oo trabeel la haysto iyo xubno kale oo mucaarada ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale kamid ah siyaasiyiinta markaasi isagana hubku u yaalo degmada Daynile oo ka tirsan gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho taas ayaana sidoo kale waxaa lagu tilmaamay in ay tahay mid muujinayso waxaan ay ka dhigan tahay in haddii markaasi dowladda federaalka Soomaaliya Daynile sidoo kale ay hubkan ay ka soo ururiso gubadleyna Sani Cabdulle ay ka soo ururiso dowladdu rajadeedu waxay noqon doontaa 100% mucaaradkuna waa ay markaasi ay ka adkaateen laakiin weerarkan koor waa in laga fikiraa istiraatiijiyadda xeeladda iyo qaabka markaasi hubkan loola wareegi karo oo ay suuragal ay markaasi ku noqon karto waa inta ugu badan oo haatan durbaba markaasi la isweydiinayo su'aalaha miiska saaran isla markaana meesha yaallo oo iyadaba markaasi ka dhigan in ay tahay midda kaliya oo muujinayso in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaado talaabooyin kale oo dheeraad oo la xiriira arintan durbaba waxaa muuqanayso in xaalku uusan ahayn sahlan Muqdishona maalmaha soo aadan waxay kali doontaa marxalad ka duwan kuwii hore waxaanay sidoo kale ay noqon doontaa marxalad dagaal marxaladan dagaalka ayaana waxa ay noqon kartaa midii markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo afjari lahayd ama midii uu markaasi uu kaga guuleysan lahaa mucaaradka inta aan la gaarin 15 May ayaa arintan ay dhici doontaa Sani Cabdulle ciidamadii markaasi weerari lahaa waa la diyaariyay oo iyaga waxay u diyaarsan yihiin in ay galaan halkaasi Daynile sidoo kale waxaana dhinaca kale markaasi heegan waxa ku jira iyagana mucaaradka oo si dhow arintan ula socdo isla markaana diyaarinayo ciidamo kala furfurayaan sidoo kale socdo oo inkastoo ciidamo markaasi mucaaradka taabacsanaa iyagana ay ku sugan yihiin gobolada Shabeellooyinka laakiin haddana ayna suuragal lahayn in ay markaasi ay soo galaan magaalada Muqdisho dowladdu awoodoodii ugu dambeeyay ayayna sidoo kale soo geynaysaa waxaana muuqanaysa in xaalku uusan ahayn marnaba mid sahlan oo diyaargarowgii ugu dambeeyay iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaana soconaya haddaba waxyaabaha ka soo kordha amarka guud ee lagu bixiyay in la soo qabto Sani Cabdulle gaab waxyaabaha ka soo kordhan wararkeena dambe ayaan idinku wadaagi doonaa